بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قدونك أقل كسرة قدونك قلها شعبك برلمانك جمهورية الفدرالية الصومالية اللي بانا شرفت له إلى بدأ أقل قدي قدور شوينك عيدا مدى السوقية أمني جينا صحافة الصومالية مركز تيجوكتو الدونك دعالة ديسة waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudanayaal iyo marwooyin, magacaygu waa Dr. Abuukar Aadan Cadde. waxaan ku soo barbaaray guri ay wadaniyadu har u tahay. waxaan ka mid ahay awlaaddii uu madaxweynaheenii hore ee qaranka Aadan Cabdulle Cusmaan uu ku soo barbaariyey tarbiyad wadaniyeed iyo mid diimeedba. waxaan ahay takhtar caafimaad, waxaan leeyahay xarun caafimaad oo guulaysatay, waxaan ahay aabbe leh qoys wanaagsan oo la jecel yahay. mudanayaal iyo marwooyin, maanta hortiina waxaan u imid inaan idin caddeeyo inaan ahay musharax u taagan hoggaanka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 2022. halkaan isuma soo taagin inaan magaca mahanti ka raadiyo madaxtinimada Soomaaliya. waxaan kaliya u imid inaan ka qayb qaato samata bixinta dalkeenna iyo dadkeenna. walaalayaal, waxaan ka mid ahay dhashii SYL. waxaan ku soo barbaaray guri lagu qadariyo Soomaalinimada iyo waddan jaceylka. waxaan aaminsanahay dhaartii ay ku dhaarteen aabbayaasheen SYL oo ahayd inaan la qaadin tilaabo lid ku ah qof Soomaali ah, in la caawiyo dhibanaha Soomaaliga, in Soomaalida ay noqdaan dad walaalo ah, in laga fogaado qabyaaladda, in laga fogaado haybta koorka. waxaan aaminsanahay haddaan taas ku dhaqanno in wax badan noo hagaagayaan maanta. walaalayaal, waxaan kaloo aaminsanahay in caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan horumarkeenna inay yihiin hoggaan xumo iyo ku takrifal awood dowladeed, qabyaalad oo loo adeegsado dhinac walba, musuqmaasuq baahsan oo lagu boobay hantidii qaranka, aqoon darro iyo xilkasnimo la'aan. waxaan ahay shakhsi aqoon fiican u leh xallinta caqabadaha aan kor ku xusay. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan muddo 31 sano ku soo jirnay xasilooni darro iyo jahawareer siyaasadeed. waxaan soo marnay dagaal sokeeye, dowlado ku meel gaar iyo dowlado ku meel gaar ahayn. waxaa la yaab leh waxay Soomaaliya u degi la'dahay. waxaan nahay dad isku diin, isku dhaqan, isku luuqad iyo isku isra. dalkeenna wuxuu u baahan yahay madax leh aragti fog, dulqaad badan, iskuna wadi karta dalkeenna iyo dadkeenna kala irdhoobay. waxaana isku arkaa inaan ahay mideeyaha awooda inuu isku keeno iskuna wado fikradaha kala duwan ee bulshadeenna. sida kaliya aan horumar u gaari karno waa annagoo wada shaqayna, kala shakiga la iska daayo, hardanka qabiil la iska iloobo, og danteenna guud oo na midaynaysa inay ka weyn tahay danta gaarka oo na kala geynaysa. haddii alla idmo, dowladda aan madaxweynaha u noqon doono waxay howlgelin doontaa barnaamijka siyaasadeed hoos ku qeexan. barnaamijkayga siyaasadda wuxuu u qaybsamaa siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda. siyaasadda gudaha, qodobka ugu horreeya waa sugidda amniga. waxaan uga bixi karnaa amni darrada annagoo xoojinna ciidamadeenna qalabka sida oo tayayna qalabayna. ciidamadeenna waa inay ka fogaadaan inay ku milmaan siyaasadda.
waa inay ka kooban yihiin bulshada Soomaaliyeed oo dhan waa inay ka yimaadaan gobollada oo waddanka ka kooban yahay waa inay leeyihiin hoggaan midaysan waxaan kordhinaynaa mushaaraadka ciidamada Soomaaliyeed nooc kasta ay yihiin dib u heshiisiin dhab ah aan weli qabsoomin walaalayaal Soomaaliya waxay soo martay dagaal sokeeyo qaraar Soomaalidii way kala dhowday kala shaki badan baa soo dhex maray wada shaqayntoodii baa yaraatay marka waxaa loo baahan yahay shir dib u heshiisiineed dhab ah dowladdayda waxay ka shaqayn doontaa abaabulka shir dib u heshiisiineed oo doorka dowladda yahay fududayn shirkaas waxaa hoggaamin doona hoggaamiye dhaqameed culumidiin waxgarad kuwaasoo ka fog wax kastoo xumaan ah ay ugu horrayso qabyaaladda iyo gobolaysiga waxaan abaabuli doonaa shirar ay Soomaalida isku cafiyaan qodobka saddexaad waa dhammaystirka dastuurka waxaan dhammaystiri doonaa dastuurka qabyada ah sida ugu dhaqsiyada badan waxaana hirgelin doonaa ku dhaqankiisa si loo gaaro dowlad wanaag garsoorka waxaan dhisi doonaa garsoor tayo leh oo madax bannaan garsoorka waxaan u qoondayn doonaa miisaaniyad u gaara garsoorayaasha waxaa la siin doonaa mishaar ku filan si ay uga fogaadaan laaluushka ayna u fuliyaan cadaaladda waxaan kaloo ka shaqayn doonaa in la sameeyo maxkamad dastuuri oo hagta howlaha dastuuriga ah qodobka shanaad waa doorasho xor iyo xalaal ah haddii alla idmo waxaan gaarsiin doonaa waddanka doorasho qof iyo cod ah oo ka shaqayda oo shaqadeeda bilaabato 100 maalmood ugu horeysa xukuumaddeeda walaalayaal qodobka lixaad aan ka shaqayn doono waa adeegga bulshada labada qodob ugu muhiimsan adeegga bulshada iyo waxbarashada iyo horumarinta caafimaadka muwaadin walba uu xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho tayo leh sida dastuurka ku xusan waxaana midaynaynaa manhajka dalka si loo helo dad leh wadaniyad iyo aqoon tayo leh waxaana furi doonaa dugsiyadii farsamada gacanta si aan u soo saarno xirfadayaal awood u heli kara inay maareeyaan noloshooda waxbarashada iskuulaadka hoose dhexe iyo sare ay dowladda leedahay waxay noqon doonaan lacag la'aan waxaan kordhin doonaa mishaaraadka macallimiinta horumarinta caafimaadka waxaan horumarin doonaa adeegga caafimaadka waxaan qalabayn doonaa isbitaalaadka waxaan xoojin doonaa waxbarashada iyo xirfadda takhaatiirta ka soo baxda kuliyadaheena caafimaadka haddii taas la gaaro waxaa la gaari doonaa in Soomaalida dibadaha u aada caafimaadka inay ayna u baahan inay dibada u aadaan midnimada Soomaaliya waxaan la furi doonaa wadahadal daacad ah walaalaheen Soomaalida waqooyi annagoo iska daaweynayna dhibaatooyinkiina soo dhex maray si dalkeena loo xasiliyo nabad waarta loo gaaro waxaan la furi doonaa wadahadal cid kastoo diyaar u ah dhaqaalaha sida aad wada ogtihiin waxaan leenahay dhul ballaaran
baaxadiisu dhan tahay 637,657 kilomitir square iyo bad dhererkeedu yahay 3,333 kilomitir. dhaqaalaheennu wuxuu ku tiirsan yahay 3 qaybood oo ah xoolaha nool sida geela, lo'da, ariga iyo ugaarta, beeraha iyo kalluumaysiga. sidaas darteed waxay dowladdaydu awoodda saaraysaa in kobcin iyo horumarin lagu sameeyo 3 ilood ee dhaqaalaheennu ku tiirsan yahay, iyo in la dhiso warshado yaryar oo fududeeya wax soo saarka dalka, kuwaasoo shaqo abuur u noqon doona dhallinyarada Soomaaliyeed. qodobka 9aad waa xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. waxaan xoojin doonaa wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si daacad ah ay wada shaqeeyaan, ayagoo tixgelinaya in danta qaran ay ka weyn tahay danta gaarka ah. xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa xakamayn doona ku dhaqanka dastuurka dalka. siyaasadda dibadda waxaan xiriir xooggan la samayn doonaa dowladaha deriska, waxaana la yeelan doonaa deris wanaag, nabad ku wada noolaasho, faragelin la'aan arrimaha gudaha iyo isweydaarsi dhaqaale, si ay geeska Afrika u gaarto barwaaqo iyo horumar. waxaan kaloo xiriir xooggan la samayn doonaa dhammaan dowladaha adduunka oo jecel nabadda iyo horumarka. waxaan xoojin doonaa xiriirka iyo saamaynta aan ku leenahay hay-adaha caalamiga ah sida aan xubinta ka nahay, sida Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Ururka Islaamka, Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa iyo kuwa kaleba. gunaanud ugu dambayn, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinka codsanayaa inaan isiisaan kalsoonidiinna buuxda iyo codkiinnaba si aan durba u howlgalo samata bixinta iyo horumarka dalkeenna iyo dadkeennaba. Soomaaliya ha noolaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومهسية مشرح أبو بكر آذن عبد الله. هاتنا وحنو يرينا مشرح عبد الله علي أحمد عدو علي قيس. بسم الله الرحمن الرحيم. guddoonka labada aqal ee sharafta leh iyo ku-xigeenadooda, guddiga doorashada labada aqal, mudanayaasha xildhibaanada labada gole, shaqaalaha baarlamaanka, bahda saxaafadda, assalaamu calaykum.